الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كي جرائد ما أنت حقوق سابسين هاي نباتوين كدلك كجرا وأوارت مارتي دبر ديرتي كوب كتحي إن أرنتاسنا كحلو يوجد إذا ما أنت تحي مركه هراء وحنو معدلين يا رمان عد كستوق عنك جيستي سيد الدولة بدن أو دقيقة نسوق جارسية يهي أدو ومعدلين يا دولة الصوماليات أو أمارتي أيضا الددال في عن ذلك كودو ددال حوجن كودو أيضا ومعدلين أساس أكله ددوينها إيو جالدها الصوماليات أيضا مارتي عنك جيستي وهم معدلين يا أيضا انتاس ددال السمايي عندنا وحنو موقتا إن شعب الصومالي دي لبهديس للضبالين أن أرنتو أدقتهاي أرنتاس سببتي أفرسنا كدوات أو ذلك الروابط كل فلاي لواي dalagyadii la sugayay aan soo bixin iyo maaragtay nabad geli xumada dhalinyaradan la qalday oo al-shabaabka duurka ku jirto shacabkii cadaadis saareen oo tacabkood iyo ganacsigooda iyo howlo dhaqashadooda dhan cadaadis la saaray taasna abaarta maaragtay waxay ku kordhisay dhibaato aad u ballaaran marka waxyaalahaas dhan waxa loogu gudbi karaa in si muwaafaqo ah la isku duuban yahay loo wajaho yaani gargaarka lagu dadaalo iyo dawladda oo si gaar ah aydan looga baahan yahay runtii in ay helaan shacabka Soomaaliyeed amni ay ku noolaadaan oo tacabkooda iyo maaragtay deegaanadooda deganaansho ku joogan taasna waa waajibaadka dawladda aydan waa looga baahan yahay in kastoo runtii dadaalkaas la bilaabay wiilana farikama qodna waan ognahay marka ujeedadayda maanta ugu weyn inaan baaq labaad mar saddexaad waa laga hadlay laakiin maanta waxaan rabaa in xilligii roobkii uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaarkoodana hore yaaba maaragtay jididkooda loo xirtay diyaarad in lagu tagamaahin yaani jididkooda waa xirnaayeen kuwa kale waxa laga yaabaa roobabku markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka maaragtay la kordhiyo dadka maaragtay ummadda Soomaaliyeed u gargaarahay sida dawladaha iyo hay'adaha samafalka gargaarayay waxaan rabaa inaan ogeysiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay si kordhiyaan si laban laabaan waxa laala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiyo in baahida shacabka Soomaaliyeed haysato 20% hata ka qabsoomin oo gaajo adag ay jirto laga yaabo hadii maaragtay gargaarka aan la kordhinin ilaahay abaarta waa naga bixin karaa Roma noo soo dejin karaa taas nicmada ilaahay asigan ka sugayna laakiin hadii maaragtay xilliga wili hadda roobka bilaabado intaan maaragtay roobka manaafacaadkiis la gaarin marka ugu daran waa in gargaarka loo baahan yahay marka waxa laga yaabaa arinta sidaad ku socoto haday ku socoto waxa isu bedeli doontaa gobolada qaarkood ayadoo wili gobolada taa kala daran yihiin in macaluul isu bedesho hadii arinta macaluul isu bedesho dadka inay gaajo dhintaan ay bilaabaan waqtigaas yaani wixii la keeno hataa si dadku u badbaadiyaan waxay noqonaysaa dad badan inay gaajo daraadeed ay u dhintaan ilaahay aan ka magalnay in ilaahay abaarta naga bixiyo dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyo marka waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo si maaragtay xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiyo waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumaddan ku mashquulsan iyo gudiyada qaabilsan iyo hay'adaha gobolada naftarkooda abaarta guud ahaan dalka way jirtaa haddana gobolada waa kala daran yihiin afka waa la sheegaa markii la sheegayo meel heblaay ugu daran la dhaxaya markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si bacan uga habsatay oo shalay la tilmaamayay markii wax la keeno waxaad arkaysaa haddana maaragtay wax zaa'id ah oo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid isku mid laga dhigaya taas naftarkeeda waxaan leenahay gobolada ugu daran yaani gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto dadka qaar geeri bilaabeen in priority la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah raashinkana loo badiyo gargaarka loo badiyo sidii dhibku u kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo taasna maaragtay waan ku baraarujinaya xukuumadda iyo macnaha hay'adaha ku mashquulsan waxaan rabaa maanta ujeedadayda ay tahay baaqayga uu yahay arintii abaartii markii hore waa la sheegayay abaara jirta wili dadka markaas waa noolayeen oo waa fiicnaayeen oo waa dhaqaaqi kareen waxaan ogaanay warbixinta aan ka urursanay gobolada maalmahan ugu dambeeyay inay bilaabeen dadka inay gaajo u dhintaan xilligan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yaani caalamka dhan hal tuul amal
يعني واحد الله وحي دباتي قال لو قيبسنها إن قاعدة كل إنتان أو واحد لا جاري وايو هذا نقولنا هاي وحن لنا هاي ولا ليال dadweynaha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed caalamka idii maaragtay hay'adaha samafalka iyo wadamada deegaha bixiyo waxaan codsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arintaas wax la taaban karo laga qabto haddii muddadan maaragtay labadan bilood September iyo October gargaarka la balaarinin oo la gaarin waxaan noo muuqata waxba laga qaban karin arinta gaarto oo dad badan sidii 90 iyo 92 oo kale inuu dalka ka dhaco dareenkaas inoo muuqda marka sababta maanta arintaan aan baaqeeday aan maaragtay inaan u jeediyo sababay waxa maalmahan dhan runtii waxaan ku mashquulsanaa maadaama madaxweynaha dalka ka maqan yahay dalka aan maaragtay daan ku samaan ku ahay waxaan urursanayay ilaa lamada maalmood dhan yaani gobolada sida xaaladooda tahay ilaa shalay runtii warbixinta soo gaarayso waxaan ogaanay in dad badan oo maanta nool gaajo daraadeed laga yaabo inuu dhintaan toddobaadada soo socdo sida daraadeed waxaan mar labaad mar saddexaad adkaynayaa in gargaarka la balaariyo taasana ujeedadaydu weyn ay tahay insha Allah dawladda Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa inaan afka kaliya wax laga dhihin amaanka dalkan wax lagu gaarsin karo shacabka lagu badbaadin karo dawladdan isxilqaan horle inay maartay anuguna maartay runtii ku talaabsan waa nooga baahan yahay guud ahaan aniga oo kala haraynin